Kan walaashiis wuxuu ka caawinayaa inay hesho ookiyaaleed oo ka lume. Sikadiisa wuxuu ku ogaanayaa inay birta hoostiisa taalay ee dhaqdhaqaaqayso. Si tartiib ah u qaada birta. Wuxuu mooday inuu helo god qarsoon ay ka buuxaan hanti. Wuxuu arkay xaggan dhaqdhaqaaqin. Madilla aad buu u argagaxay aragtidii koowaad. Kadibna waa carraa. Isagoo cabsi la gariiraya markii uu guriga ku noqdo asigii walaashiis waxay arkaan baabuurka aabahood oo guriga hortooda yaallo. Waxayna si farxad leh ugu ordaan guriga. Aabahood inta badan shaqo ayuu jiraa. Wuxuuna u keenay hadiyado. Intii ay casheynayeen walaalaha waxay isku qaafayeen cid u soo iibinaysa aabahood cabitaan. Aabihi ayaa firadkeena wuxuu u qurtuurayaa labadiisa ciyaal. Balse aabihii ayaa go'aansanaya inuu iska dhaafo. Habeenkaas Madilla ma uusan hurdin. Wuxuuna ka fikirayay qofka godka ku jira inuu nool yahay inuu dhinto. Maalinkii xigtay ayuu soo fiirinaya godka si uu u baaro. Neef dheer ayuu qaataa si uu naftiisa u dejiyo. Kadibna si tartiib ah ayuu u qaadaa godka. Tii weliba ay taalay wax dhaqdhaqaaqana ma aysan sameeyeen. Madilla wuxuu ku tuuro dhagax wax falcelin ma jirin. Markii dhagax kale uu qaaday si uu ugu tuuro cagtii waa ay babaaday. Madilla wuxuu isku dayay inuu godka fiiriyo. Waxaa ka nixiyay wiil yar oo caata oo godka ku jira. Madilla qaylo ayuu la dhacaa cabsi darteed wuxuuna ku booday baaskiilkiisa. Wuxuuna si xoog leh u dhaqaaqaa wuxuuna la dhacaa baaskiil. Kadib markii uu mursado jirkiisa waxaa ka buuxsan quraan iyo silsiladii baaskiilkana waa gooday. Fadlan baarto la soco gordhow.